shirka hay'adaha cadaaladda iyo amniga waa shir bilaa ah oo diiradda lagu saaro sidii dadka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen cadaalad hufan. labada hay'adood waxay ka shaqeeyaan fulinta sharciga dalka, waxaana shirka ay yeesheen goobjoog ka ahaa wasiirka cadaaladda, wasiir ku-xigeenka amniga gudaha, xeer ilaaliyaha qaranka, taliyaha booliiska iyo saraakiil kale oo ka tirsan labada hay'adood. waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Dr. Ibrahim Idle Suleiman. xeer ilaaliyaha qaranka Dr. Ahmed Ali Daahir ayaa sheegay in shirka uu ka soo baxay in si wada jir ah tallaabo adag looga qaado ciddii lagu helaa sameynta waraaqa been abuur ah. waxaan rabaa inaan anigu wax yar ka hadlo oo kaliya qodobadii maanta looga hadlay qodob ka mid ah, isla markaasna aan iclaamino in ay ka soo baxday shirka waxa la yiraahdo la dagaalanka dambiyada been abuurka ku salaysan. dambiyada dokumentiga ama dokumentiga been abuurka ku salaysan oo runtii aad ugu baahsan dalka, waxaa la isla qaatay in sida uu sharcigu qabo loola dhaqmo. hadda wixii ka dambeeya waxaan amraynaa in dhammaan cid kasta oo ku lug leh faldambiyeedyada forgeryga ama been abuurka ama xamar looga yaqaano Cabdalla Shideeyaa in laga bilaabo maanta horena loola dagaalami jiray, haddana uu bilaabmayo olole looga hortegayo wax alla iyo wixii ku lug leh faldambiyeedyada noocaas ah, waxaana lagula isticmaali doonaa sida uu qabo xeerka ciqaabta. wasiir ku-xigeenka amniga Cabdinaasir Saciid Muuse ayaa dul istaagay ahmiyadda ay leedahay in labada hay'adood ay ka shaqeeyaan dhaqangelinta go'aanka la xiriira ka hortagga waraaqaha been abuurka ah iyo in laga shaqeeyo in dadka Soomaaliyeed ay helaan cadaalad hufan. waxaan isku raacsanahay shacabkeena Soomaaliyeed inay cadaalad helaan, cadaaladoodana aan ka wada shaqeyno. sidaas ay ahayd shirkan macnaha maanta saacado badan u fadhinay. arinta maanta laga hadlay shirka ugu muhiimsanaa waxay ahayd arinta waxa weeye dokumentiyada feega ah oo aan waxba ka jirin la sameysanayo. taas anagoo dhan isku wada raacnay in meel looga soo wada jeesto. wasaaradda amniga anoo magaceeda ku hadlaya oo taliyihiina nala joogo, waxaan rabnaa inaan meel uga soo wada jeesano dadka qowleysatada ah. maxkamadda sare ee dalka, wasiirka cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in maxkamaduhu ay muhiim tahay inay iska ilaaliyaan waraaqaha been abuurka ah. qofkii laga sii deeyo maxkamadda iyo qofkii oo lagu qabsadaba dembi, haddii ay noqoto documentigii oo lagu soo eedeeyey mise dembigaas daraadiis looga xiray document oo qaldan mise been abuur, xukunku wuxuu noqonayaa xukun oo khatar ah. sidaas daraaddeed maanta waxaan isku buraarujinay documentationkaas noocaas ah in la iska eego markii maxkamadaha la keeno. Dr. Ibrahim Idle Suleiman oo shirka gudoominayay ayaa tilmaamay in labada hay'adood ay ka wada shaqeynayaan sidii kama dambeys qof walba Soomaali ah uu heli lahaa cadaalad. hawlaha sharci fulinta iyo hay'adaha qabta sharci fulinta si ay u suurado kama dambaysta in qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed uu helo adeeg cadaaladeed oo hufan oo ku yimi hab sharci iyadoo la dhowriyo sharciga hay'adaha sharci fulinta ay ka duulayaan sharciga. marka iyadoo ay isu dhan yihiin, hadday yihiin bilayskii, xeer ilaalintii, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda amniga iyo hay'adihii kale ay dhammaantood ka soo qayb galeen, waana wax maadaama aanay jirin dhammaystiranka uu ilaahay keliya uu leeyahay ma loogu talagalay bil walba in lagu saxo wixii qabyo ahaa. Cabdishakuur Ali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.